intaan lagu xirin ka hor sidee wax u dhaceen xiritaankaagii maxaa sababay dadku xiran ogaadaan waxaa dhacay wax yar khalad yar oo maaragtay markaa bini'aadanka waxay jecel yihiin inay wax buunbuuniyaan aan waxna ay qiimeeyaan nin dhalinyaro ahay oo iska bulsho badan oo nin aad u fiican qalbi fiican waxaan markaa dhacay khaad baa gaari ku jiray khaadka gaarigii marka business aan iskaga jirnay iyo wixii dhalinyaronimo baana qaaday maqaldamana waa so waxaa dhacay marka khaadka gaarigii booliisaa noo imaaday wuxuu dhahay bahalkan khaadaa lahaan ku dhaha waa u sheeg waa u macneeyey marka wuxuu dhahay okay waaye aad iyo aad no problemna ma jiro marka waxaan kuu sheegaa saaxiibkayga haddaan war badan kugu daalinin inuu ilaahay mahadiisa aan aad u fiicanahay aan caafimaad qabo inuu waxayna iga dhammaadeen aan nin xur ah maanta labadiis lug ku taagan oo meel walba aadi karo waxaan u mahad celinayaa soomaali weyn meel walba ay joogaan bulsho weyn intii i taageertay intii i caawisay aad iyo aad aan wada salaamaya waa u imaanaynaa taageerada iyo dadkaas aad u mahad celinaysid marka qaadkii lagugu qabtay adigii saaxiibada dabcan qaadkaasaa keenay in lagu xiro saas miyaa ujeedadu saas weyn ujeedada intaas weeyaan dad fara badan suuqa waxay geliyeen mayaas waxaa lagu xiray arrimo kaloo dumar la xiriira qaar waxay dhaheen maya waxay ahayd insurance fraud dadka waxyaalahaas yiri maxaad ka oranaysaa caawa wallahi ninka waa caawa dadkaas waxaan dhihi lahay ninka ragga markuu labadiis lagu taagan yahay laga hadlaa nin qiimo leh inta aan waawis ogaadaba marka inaan qiimo aan leeyahay ogaaday taageerahay meel walba ay joogaan aadan wada salaama meel walba adduunka ay ku wada nool yihiin taageeradooda waa gartay hadda waxaanu ogaanay afkaagana ka dhegaysanay arrintu inay qaad iyo related ahayd laakiin aysan ahayn maaragtay waxyaalaha kaloo la sheegayo